بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. waxaan filayaa intii sheekh al-Misakhriyina fahamteen warkuna intaa kama badna. anigu darsi inaan bixiyo uma fadhiyo, laakiin laba saddex eray oo kooban. darsiga meesha ku qoranay waa sidee guusha loo gaadhaa, saxan kama waliba guusha dhabta ah. intaynan wasaa'isha isweydiinin oo ah sida loo gaadhayo maxaa guul ah, qormaynu odhan karnaa buu qofka bini'aadamkii guulaystay ama guul dhaba goormuu gaadhay. maalan, bini'aadamku si uu guul ama guuldarro u sheego waa inuu hadaf, target waa la yidhaahdaa, yool waa inuu calaamadiyaa. meeshaa markuu xadido ee calaamadiyo ayuu isweydiinayaa ma gaadhay mise maad gaadhin. hadduu gaadhayna wuxuu odhanayaa waan guulaystay. hadduu gaadhi waayana wuxuu odhanayaa waa maxay, waan guuldarraystay. socanka maaha. masalan, qolada ordaya ee baritanka ku jira, meel baa maro yar loogu xidhaa ama xariiq loogu jeexaa. dabeetana waxaa la yidhahaa soo dhabaabaceeya, soo orda. ka ugu horreeya xariiqda gaadha gacmaha cirka u taago yidhaahda waan guulaystay. saxanka maaha. yacni hadafku waa in xariiqdaa la gaadho oo intan kula ordaysa aad ka dheeraysid oo aad ka hor gaadhid xariiqda. haddiise aan xariiqi jirin oo hadaf meel loo ordayaa jirin, ninba meeshuu doono hadduu cararo kee guulaystay. markay qaar xaggaa u cararaan, hadday qaarna xaggaa u cararaan, kee baynu odhanaynaabaa guulaystay. guul iyo guuldarro toona sheegi mayno, waayo hadafkaan xadidnayn nolosha qofka bini'aadamkii markaa waxay leedahay ahdaaf kookooban oo yar iyo hadaf weyn oo ka xaqiiqiga ah. ahdaaf kooban bay leedahay oo maalan arday baa tiin iskuulka markaad sanadkan dhiganayso ee aad wax soo akhrido, aad diyaargarowdo, imtixaanka aad gasho, aad baasto, waxaad odhanaysaa waan guulaystay. saxankaa maaha, waayo hadafkii koowaad ee ahaa sanadkan inaad dhammayso baad dhammaysa. markaad 3 sano ama 4 sano dhammayso waad guulaysatay, waayo waraaq yaroo magacaagu ku qoran yahay iyo inaad secondary school dhammaysay waa lagu siinayaa. markaad jaamacad gasho waan guulaystay baad leeday, oo koofiyado yaryar iyo maryo yaryar aan kuween u ekayn hore inta lagu xidho ayaa lagu odhanayaa waa calaamadii guusha. dabeetana waraaq baa lagu siinayaa. haddaba nolosha goormuu qofka bini'aadamka odhan kara waan guulaystay? noloshu waa wax kooban. ninka dhallinyaradii inta badan nolosha intaasoo ku arkaa, waayo wuxuu tiriyaa intuu jiray. imisaad jirtay? anuu 20 baan maraya, 21, 22. laakiin qofku markuu da' gaadho 60 iyo meelaha markuu soo gaadho wuxuu isweydiiyaa war talow maxaa ka hadhay? 5 baa kuu hadhay, ma 2 baa kuu hadhay, ma 10 baa hadhay. intii xaggan laga soo tirinayay dhammaatay. hadda wuxuu xaggan ka tirinayaa war talow intee ka hadhay. haddaba nolosha oo dhan markaynu eegno goormaynu odhan karnaa qofku wuu guulaystay ama wuu guuldarraystay? waayo qof walba xaqiiqada bini'aadamku uu wadaago ee uu wada rumaysan yahay baa geeri.
intaad doonto noolow waxaad doonto soo cun waxaad doonto soo qabo waad geeriyoonaysa idan xariiqda ugu dambaysa la gaadhaya halkan inta la joogo waa geeri intii ka horeysayna waa geeriyootay inta joogtaana waa geeriyoon doontaa waa geeri marka la geeriyoodo xabaal yar baa la isku wada ridaa haddaad xoolo badan shaqaysato bilyaneer ahayd laba maroo yaroo cadcad inta lagugu duuduubo ayuunba xabaasha lagugu ridi haddaad faqiir ahayd qaadaama dhargaan aan waxba haynin labadaa maruunbaa lagugu duuduubay xabaashaa lagugu ridi haddaad magac iyo maamuus lahayd oo madax iyo wax soo martay maradaa unbaa lagugu duuduubay halka unbaa lagugu ridaya haddaad nin iska xamaaloo suuqiisa iska jooga ahayd maradan unbaa lagugu duuduubaya halkan marka dadkiiba ma isku wada noocbaa wixiiba ma maradan yare lagu duuduubaya ku dhammaanaya kee guulaystay markaa haddii wixiiba mara yaroo cad inta lagu duuduubay god lagu riday keebaa guulaystay dadkan noloshu waa inay hadaf leedahay waa inay qasdi leedahay markaasaynu garan karnaa yaa guulaystay yaan guulaysan man yutic illaaha maxaa ku xiga والرسول maxaa ku xiga ilaahay wuxuu tilmaamayaa ciddii ilaahay iyo rasuulkiisa adeecday ayaa maxay ayaa fawska alfawz alcadiim kuwaasaa helay qur-aanka 4 jeer baa ereyga alfaa'izuun ku soo arooray 4taba wuxuu ka warramayaa ka الفوز العظيم صدح يطبن جرب كسو أرورتي صدح يطبن كجرب آخره كورميسا الفوز الكبير مربي كسو أرورتي إيانا حقاسي كورميسا الفوز المبين لبا جرب كسو أرورتي لحية طبن جرب إريقا الفوز اللي هذا قرآن كسو أروري لحية طبن جر لحية طبن كجر مدنا الدنيا كورميسو لحية طبن كجر إلهي يري ذلك الفوز العظيم أما هو الفوز العظيم أما الفوز المبين أما الفوز الكبير ليري انتو بوحاي كورميان وآخره إذن قوش الدبت إن نولش قوش الدبت داهي ومركات آخرة بدباده فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلهي وحين وقوى الرمي عدة قوليستين عدة سقرطهاي سيداوغيت سيدي لو بدبادا ما سيدي لو قادا قوشا نبطا هدينو لهنو وين نقطة طريق كستو ميشا كو قارسين ايا وحي لو بدبادي لها طريق كستا oo meesha liibaanteeda ku gaarsiinaya wixii lagu badbaadi lahaa walidaalika quraanka ilaahay nabiyuuna ugu tilmaamay anbiyadu dhammaantood waa guuleysteen Soomaha nabi faashil ma jira maya hadana ilaahay quraanka wuxuu ugu tilmaamay anbiyada qaar madax noqday oo dawladda maamulay oo jiniyaysiba u taliyay sidii Sulaymaan iyo Daawud iyo anbiyo madax waaweyn Allah uga warramay waxa kale oo quraanku ka warramay waa fariiqan taqtuluun anbiya la laayay inuu wax maamulo daayay inuu wax qabtay kow laga siiyay baa ilaahay quraanka kaga warramay haddana waxay leenahay anbiyadu waa wada guuleysteen nabi faashil ma jiro ama guul daraystay nabi waliba wuu guuleystay waayo hadafka xaqiiqiga noloshu garta noloshu maxay tahay buu fahmay dabeetana isagoo jidkii nolosha ku socda ilan qof waliba waa dhimanaya ama lagu dilaa ama meel soo ku dhimay qof waliba waa dhimanaya isagoo jidkii hayay ka baxday saadaradeed baa loo leeyahay wuu guuleystay laakiin dhalinyarada weydiiyay ninka badaha isku maqiiqay ka booda ee naftu kaga baxdo iyo ka tallaaba ee Yurub gaadhay ma nidhaana kaasi waa guuleystay midna wuu dhintay sax ma tahay يوروب إن لقادا وح نفط الله بحياة ميت يوروب لقادا وح نفط بالله رميت وح نلشوا واحد قلنا وليد ميت وهدي اللواية أي تهينا الدمطة
أيها الأحبة dadka intiisa badan waxa ka qaldan wixii loo noolaa markii la garan waayay waxa loo nool yahay ayaa ninba bad cidla ku geeriyoodo meel kala ah qofba sidoo meel u orday mid isagoo xoolo raadinaya ka baxday mid isagoo dad laynaya ka baxday waliyahan dagaalama reer buu dagaalamaya wuxuu haystaa reerka kale haday dad badan ka laayeen inay guuleysteen iyagoo faraxsan bay soo noqoneen maxaa qabateen waa jabinay buu leeyahay reer hebel xabadi kama saydhin reer hebel haddii aakhiro loo diro miyaa la guulaystay reer hebel haddaynu aakhiro u diro ma guulaysanay يعني dadku waxay garan waayeen wixii loo noolaa hadaful xayaaba la garan waayay waxa loo nooliyaa la garan waayay waxa wax loo baranayaa la garan waayay waxa loo guursanayaa la garan waayay waxa loo joogaa la garan waayay wax oo dhama haday lilaahi yihiin ya ilaahi tiisa wax idin gaarsiinaya wa fuztu wa rabbil ka'bah sahabi u sheegay ninkii midida la galiyay waranka la galiyay sahabiga geeriyooday wuxuu yiri fuztu ورب الكعبة وأقول استيبولي ربك الكعبة لما كنا أرطيه وأنا للدلي ولي بدل غدر يبا للدلي يعني دي الخيامة ديك ورا نمانو تمادو ويمرك ورا وحكوش يقان وأدبت النصيحة دا كتلين يسي ومرك أدو تمادو مدينتو حق دبك عمارو ورنكو قليو حضر الله يتولي نمك واي خيامية ونمك واي دكرين لكن هنا وحو أركيي nolosha wixii uu raadcaynayay inuu helo shahaada saadaradeed ma eegin qoladan khiyaameysay iyo makriga la sameeyay iyo waxaan oo dhameeyay uma muuqan waxa uu muuqatay halku uu socday wuxuu arkayba inay dariiqii u soo gaabiyeen jannada loogu socday meel dhow inuu ka talaabsaday saadaradeed buu wuxuu lahaa fuztu wa rabbil ka'bah dhalinyaro waxaan idin sheegayaa marka ina guulaysataan iyo ina guul daraysataan waxay ku xidhantahay hadafka aad xadidateen wax noolaada ma yahay oo cimri loo bixiyo oo waqti loo lumiyo mise maaha hadduu waxa qiimaha leeyahay markaad gaadho waad guulaysatay haddii aanu ahayn waxa qiimaha leh markaad gaadhaan buu habaan mansuura noqonaya ayuumaad waayaysaa wixii marka hore waxaad salahayd guul baad xaqiijinaysaa kan Yurub si rooraya marka uu badda nafta ku halqiyay waxa la guul baad gaadhaysaa laakiin markuu xagga kala tago ayuunbaa noloshu waa cidhiidhi noqonaysaa soo BBC meelaha kaba maqashaan mid isagu da qantaradii ka talaabo la wareysanayo leh hadaan sidan moodayo way wuxuu isla hadad halkan ka talawdo حاجة كلام لا جنة كحكتور رجيني لعق يا برادة يا برواقة يا ورسدنا أقول بنتين وبلا أقول بيا حجارة حبيس ما بدلين حلقة يا بدات كبرنا إلى هذان هاي كوي حاجات يسوقها قردارة صار استيمها ورن لكن غير كنا حلقة يا بين كون قفكر ضفتي إمسا دار صار استي توما صار استي سجال بقولي سجاشة كي كلمة يسوي دي سن حاجة كم غيين وكوا هل كان شوقة طبعا كم بدمياني دارة دسان halkan jooga dadka halkan degan toba kamid oo daara dhistay ma jiraan waan talaabinba ka badan kuwa halkan jooga intay daara dhisteen ba waxay ka badan tahay in xagga tagtay daarahay dhisatay waxaan uga jeedaa haddaad xataa soo dhisato soo godka gelimaysid maxaa ka dambeeya noloshu waxay qiimo ku leedahay in la fahmo waxa loo nooliyay gaalada qaar badan baa maanta way istilaan waliba groupka istila waxa ugu badan tabaqada sare tabaqa alkaadixa ma aha dadka istila waa kuwa waxaysta waa injineerada iyo professorada iyo dhakhaatiirta iyo maalqabeennada waa kuwa dadka istila dad maqasho Yurub waa la istila dadka istila waa kuwa maxaysatadu isma dishay inta badan waayo waa mashquulba maxay isu dileen waxay moodayeen inuu guul yahay ba markay gaadheen buu dhadhan sameyn waayay waxay moodayeen guul ayaa markay gaadheen ayuu macno u sameyn waayay habeen dhaweyd baan dhakhtar wuxuu lahaa waxaan dhalinyarada markaan ahayn buu yiri wax baro wax noqo cayn kan noqo dhakhtar noqo surgery wixii baanu noqonnay
dabeetana markaan wixii noqonnay waa Yurub noloshii waxay noqotay buu yidhi in lagu yidhaahdo intaan jimcaha soo galo ilaa isniinta inaan dhakhtarka ku jiro waanad wakhti aad seexato lahayn waxba lahayn saacad kasta lagu toosinaya soo kac beeshan baa la keenay mid baa sakaraada mid baa caynkana maxaan ku samaynaa dhowr iyo 30 saacadood umaad soo fadhiyaysaa hadhow markaad noqoto waxaad noqonaysaa buu leeyahay adigoo daalan oo naftu ku haysato gurigii hudheelka haddaad tiraahdaa wax cun waad ka wahsanaysaa waa daashay waa inaad cunno yaroo intaad gaadhiga sii waddo aad liqi karto waayo wuxuu rabaa sariirta hadduu gaadho inuu istuuro kadib markaan muddo waday buu yidhi baa lacagtiina dhadhan samayn war waxaanaad u nooshay waa maxay waxaan uu nool yahay ee uu intaasoo sano wax u soo baranayay ee doctorka u soo noqday ee qalliin u bartay ee mutakhasis u noqday ayaa markii uu gaadhay dhadhan samayn waayey waayo hadafkaa qaldan wuxuu noolaa baanu garanin tacab uu ka sii qaadaya daal iyo inuu seexan waayo dabeetana wixiiba intuu iskaga yimi meelaha yimi waxaan uga jeedaa iminka waxaad is leedihiin waxbaa maqan haddaad lacag badan hesho maxaad samayn lahayd aad baad wax u cuni lahayd caloosha wax badan ma qaado ma lacagtu kuu badato intan aad iminka cunto ka badan ma qaado kadan haddii lagu ridana way xanuunsataa oo dhiikar iyo macaan iyo kolestarool iyo baliya baas baa ku dhacaya dabeetana waxaa lagu odhanaya haddaad rabto inaad noolaato wuxuu dhan waa inaad ka yaraysaa idan maxaad ku samayn daashay oo naftaadii waxay u baxday in lacag badan la helo lacagtii badnayd markii la soo helayna wax macnay samayn weyde hawl badan unbay keensatuun iyo inaad dadka la tukan kari weydo markaas salaada soo galbo 10 albaabka sukiisii taagto aad sidii wax waalan albaabka dambe ka boodid inta waxaysato u fiirso markii masaajidda soo galaan degdeg bay kaga baxayaan waayo toonba meelaha inta nafta la isugu keenay idan noloshiiba haduu inta daayar kabaha ka qaataan halka ka baxda cidina kuma daba socoto soocanka ma wax ku boodar garaynaya iyo wax ku dhibaya ma aragtay inta magaciya maamuuska leh kamarad baa la daba ordaya iyo halku marayay waa kano waa luqluq bay marayaan inta mudane lafahooda bay u baqayaan imka dad madaxweyne noqoto de maqaxida ka shaahimaysid xorriyada waad waayaysa maxbuus sharafeed baad noqonaysaa qol baad ku xidhantiyo meel laakiin lagu odhan maayo waa xabsiye waa qolkii madaxtooyada lagu odhanaya waa qol sharaf leh qolkii sharafta laakiin haddaad ka soo baxdo waa in askar iyo bunduqiyo iyo qoryo ku daba rooraan waa xabsi dhabaad galaysaa yaa lagaa xabsinayaa intaad u talinayso intaasaad ka baqaysaa iska ilaalinaysaa ka fogaanaysaa marka waa xabsi sharafeed baa la yidhaahdaa waa maxaabiis madaxduye laakiin waa maxaabiis sharaf leh waa maxbuus aan wax cuni karin madaxda waaweyn dunida maqashaan wax ma cuno ilaa in laga dhadhamiyo mooyaane adiga ma cid baa cunada kaa dhadhamaysaa wixii kula macaanaadaba waad iska cuntaa ninkan wax walba uu ka shakisay cunadiisa waa in la soo dhadhamiyaa gaadhigiisa waa in la soo eegaa halkuu tegayo waa in mukhaabaraadka oo dhammi war ka bixiyaan meeshu maaha aamin maanta tegi kari maysid 10 casha ha ku dhaafaan iska sug maalinta dambe caynkaasay noqonaysaa waa inuu qof meel gaadho adigu meesha aad u baahato baskaa kaa xiga inaad fuusho soo saa maaha laakiin ninka madaxda ahi meeshu u baahdaa sidaa maaha idan bini aadamku wuxuu ammaanta moodaya xabsi isu bedelay wixii uu rabay inuu xaqiijiyo ayaa xabsi isu bedelay ayuu waayay qofku xorriyadiisii uu ahaa qof bini aadam oo nool ayuu alxibba marka war noloshan adduun qiimo ma yaallo noloshan adduun ilaahay wuxuu leeyahay yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxa walaqad khalaqna alinsaana fii kabad problemkaa isbedela maalinba problemka aad ka fakarayso unbaa kii hore ka gedisan mushkiladda nooceedunbaa isbedelaya imika waxaa laga yaabaa inaad leedahay dee mushkilad cunno yariya baa nahay soo 3 midhoo canjeelaabay islaantuna siisaa naguma filla hadhowna mushkilad cunno xumiya unbaa ku helaysaa oo wax lagu odhanaya kana cuni maysid kana cuni maysid kana cuni cunnadii waad haysaa laakiin waa mamnuuc macaan baad qabtaa inta macaan cuni maysid barashar baad qabtaa inta dhanaan cuni maysid waa wax waliba waa mamnuuc imika waad xorriyad baad haysataa laakiin dee maqaaxida waa iska fadhiya maxaad haysaa baan ku hayaa laakiin ka madaxweynuhu wuxuu isleeyahay marun yaa maqaaxidii kugu celiya iska shaahaysto dadka tiraahdo war maxaa haysaane ma haysto
idan nolosha problemskeeda isbedela laakiin guul male tani marka aad heer ka tallowdaba mushkilad cusub oo isla mushkilad baad xallishay dhalinyaro wadatiin hadda wada guurdoon baatiin soo maaha laakiin maalinta guursataan caruur yaryar iyo dhakhtar iyo islaantii baa uur leh iyo dhakhtarka la geynaya mushkilad kale baa ku bilaabmaysa adduunku waa dhibaato marka adduunku waa kabad waa daal waa beer xanuun inta la nool yahayna waa lagu jiraya waxa ku jiray dadka kuwa ilaahay ugu jeclaa yaa rabbi ugu jeceliya dunida dadkii noolaa soo rasuul maaha rasuushii loogu jeclaa baa ku jiray dhibta quraanku rasuul la dilay iyo rasuul la eriyaday iyo rasuul dagaalamay waxba waa laynooga warrabo nabi maxamed taariikhdiisa baynu haynaa calayhi salaatu wasalaam agoonnimo rajaynimo in laga saaro dhulku u dhashay iyo meeshiisii dagaal u galo nafta la isugu waxaasoo dhan bini aadamku maruu marayay idan alxayaa hakada haddaba haddaynu rabno nolosha inaynu guul ka xaqiijinno guuli waa intaad ilaahay u dhowaato haddaad ilaahay ku dhowaato noloshan baa fudaydmaysa xataa mushkilaadkeeda yasiir noqonaya mushkilaadkeeda sida loo xallilo ayaa fududaanaya anuu markaa waxaan rabaa inaan su'aalo badan madaxiina ku kiciyo jawaabuhuna intii almisidiin sheegay inay noqoto su'aaluhu waxa weeyaan nolosha tani waa kadeed hadafulxayaa haddaanad fahminna adoo daalan unbaad god ka gelaysaa adoo daalan ama madaxweyne noqo ama taajir noqo ama bilyaneer noqo adoo daalan baa laba maro yaryar lagaaga duuduubaya wax kaa raacaya aanay jirin wax allaaliya waxaad u daashay waxba kaa raaci maayaan waxba kaa raaci maayaan madaxweynaan ahaan jiraya lacag baan lahaan jiray iyo hebel baa la odhan markay marada kugu duubayaan bay meydku u bixinayaan xataa magacaagay hilmaanayaan dib loo odhan maayo madaxweynaha xabaash si fiican u dhiga ama taajirka xabaasha si wanaagsan u dhiga ama aw hebel xabaasha si wanaagsan cidi ku odhan mayso meydka iyadoo lagu leeyahay unbaa lagu sii wadaya haddaba waxaa habboon indhuhu dhalanteed bay arkaan caqliguna ama maskaxduna dhalanteed bay aragtaa dhalanteedka soo ma taqaaniin meelaha markaad u kacdo woodwardka aad mooddo in biyo fadhiyaan maxaad tidhaahdaan ya okay ishu markay ka fog tahay waa biyo is leedahay laakiin hadduu caqligu si fiican u shaqaynayo waad garanaysaa inaanay biyo ahayn meesha cadceed hayso haddaad si caqliga seexiso aad tidhaha war bal ka wardoon waa intaasay biyo noqotaaye caqli haddaad tidhaha war seexo war bal meesha ka wardoon waa intaasay biyo noqotaaye markaad timaaddo maxay soo baxaysaa dhalanteed hamiga nafta ee dunida ku saabsan oo dhammina waa nooca wax kasta markuu kaa maqan yahay buu kuu yahay biyaha hilaacaya maalintaad se gaadho ayuu kula noqonayaa uun dhalanteedka aan wax weyn ahayn maalintaad gaadho un baanu wax badan noqonaynin haddaad buul ku jirto buulka waa lagu gama'aa soo maaha waa la seexdaa haddaad daarta ugu dheer lagu saarana waa la seexdaa un wax ka badan lagama soo helo soo buulka laguma gama'o daartana waa lagu gama'aa un waxa naftu raadinaysaana waa maxay waa inay gamaado inay maskaxda tan mashquulka ka yara baxdo la seexiyo si ay mar labaad u shaqayn karto meel kasta naftu way seexan kartaa nin Soomaaliyeed baa waxa laga sheegay hurdo aan macaanaynna ma seexan cunno aan macaanaynna ma cunin weedhacankaasaa laga sheegay 3 masalo hurdo aanan macaanayn ma seexan buu yidhi markaan u baahan un baan seexdaa markaad u baahan tahay markaad seexatana haddaad dhagax dushiisa ku seexato waad gamaysaa waa kaa imanaysaa markaanad see u baahnayn haddii lagu saaro sariiraha ugu fiican gami mayside waad burburaysaa cunnadana waxay yidhaahdaa wuxuu yidhi cunno aan macaanayn ma cunin waayo anoo gaajoonayaan un baan cunaa buu leeyahy gaajadu waa iidaan adigoo gaajoonaya haddii wax lagu siiyo
berigii qaxoontiyada la joogay ninka koob shaaha hela wax ka macaani ma jirin saacayga maaha ama in yaroo garowa hela garowga candhuftaada iidaamaysa waayo gaajada wax waliba waa macaan noloshu waa sidaa maalin walba kaad heshaabaa kula qadhaadhaanayo ka kaa maqan baa kula macaan maanta haddii garowga lagu siiyo dhadhami maayo shaahina dhadhami maayo waayo ka kale sii maqan baa kula sii macaan biisaad raadinaysaa laakiin berri markay biisadu kaa ag badatana dhadhami mayso kuwa biisada haysta inaanay u dhadhamin soo ma ogidin ma dhadhanto idan nolosha hadba inta maqan baa macaan oo qofku isleeyahay war malaa intaa haddaad gaadho wuxuu way isbedeli lahayd ee adaa meel cidlaa fadhiyaad isku qancinaysaa laakiin intii markaad gaadhana isbeddel ma leh sidaa awgeed noloshu waxaan tviyada laga akhrinayo iyo warkan iyaan laydin mashquulinin waa beenaan waxba ka jirin dunida dadka isdila iyaga uu isugu dil badan reer galbeed meeday barwaaqaday haddaa sheegayaan soo saa ma ogidin statistiska dunida dadka naftooda dila waxaa ugu badan galbeed waxaana ugu yar caalamulislaam iyo afrika kuwan aan waxba haysan ayaa ugu yar dadka isdila qof bini aadam oo isagu nafta iska qabta dadka isdila waxaa ugu badan kuwa galbeedka jooga hadday badhaadho tahay maxay isu dilayaan may noolaadaan waa dhalanteedkii dadkii gaadhay way u cuntami weyde dabeetana ka taga bay is idhaahdeen malaa xagga kaleaba war jiraaye idan ayuha alaxiba taladu waxa weeyaan ilaahayna abuuray baa yaqaana naftani waxay ku islaaxayso isagaa abuuray isagaana garanaya waxay ku islaaxayso wixii ay ku islaaxaysayna rususha laynoogu soo dhiibay rusushuna waxayna bareen inaynu rabbigeena caabudno qof bini aadam oo quman oo toosan noqonno si aynu natiijada wanaagsan aakhiro u heli karno adduunkanna waxaa laynoo sheegay inuu imtixaan yahay wixii laynagu imtixaamo inaynu ama ku sabirno ama ku mahadnaqno haddii caafimaad lagu siiyo inaad mahadnaqdid haddaad xanuunsatidna inaad sabirtid hadday noloshu sidaa noqoto way fududaanaysaa dhadhan iyo macaanna way yeelanaysaa waayo طumaaniinatu اlqalb qofku hadduu helo iyo ilaahay raalli ahaanshihiisa wax ka maqani ma jiraan walidalik baa culammadii waaweynaa rag ka mid ah ibraahim ibnu ladham baa waxaa laga sheegay waxaa la yidhi jeex roodhiyo qallalan ayuu webiga furaad darsaday roodhi qallalan hadda qiyaas ayuu webiga darsaday markaasuu goostay nimcadaannu hayna hadday boqortooyadu ogtay buu yidhi way nagula diriri lahayd ninkaasi roodhi engegan buu adduunka sitaa wuxuu ku iidaantayna waa biyo meel maraya webiguu daraya si uu u raamin karo waxaanu leeyahay low calamat ilmuluuk hadday ogaan lahaayeen boqorradu waxaannu nimco hayno way nagula dagaalami lahaayeen waayo ninkani طumaaniinatu اlqalbi buu hayey ilaahay buu rumeeyey caabuday ku kalsoonaaday noloshuu u arkayay waxa ay tahay dhadhankeeduu garanayey nolosha hadafka laga rabuu garanayey sidaa awgeed bay u fududaydee u arkayeen nin cala ariiqa jidkii saxaha haya inuu yahay idan waxa kaa maqan maaha waxa qofka ka farxiyaaye waa waxa kugu jira iyo waxa aad dareemayso iyo sida aad u fakerayso iyo waxa hamiga ah ku haya kaas baa qofka ah waxa farxad geliya waxaan ku soo koobayaa warka markaa in madaxweyne la noqdaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in lacag badan la helaa guul maaha ee waa mas-uuliyaad la kororsaday in magac weyn la helaa guul maaha waa mas-uuliyaad la kororsaday laakiin ama madaxweyne ahaw ama taajir ahaw ama magac lahaw ama miskiin ahaw inaad ilaahay raalli gelisaabaa guula idan qof waliba wuu guulaysan karaa bimaa cindahu min imkaaniyaat buu ku guulaysan karaa waxaad haysataa intuu leeg yahay haddaad madaxweyne cadaalad iyo diin iyo akhlaaq iyo dhaqan iyo wanaag wada waad guulaysan kartaa alimaamu alcaadil 7 jannada carsh araxmaan harsanayuu ka mid yahay
haddaad nin dhallinyaro oo dhowrsoon oo akhlaaq leh waad guulaysan kartaa shaabun nasha'a fii cibaadati illaah waad guulaysan kartaa haddaad qof yacni mustawaha nololeed ee aad joogto guushu markaa kuma xidhna adduunka inta kaa soo gaadhay magac iyo maamuus iyo hantina guushu kuma xidhna waad kadeednaan kartaa adigoo madaxweyne ah waad kadeednaan kartaa adigoo taajir ah waad kadeednaan kartaa adoo magac iyo maamuus leh waanaad kadeednaan kartaa adigoo faqiir ah intaba kadeedku wuu la socon karaa guushuna way la socon kartaa idan guush iyo kadeedku ama guush iyo guuldarradu kuma xidhna waxa gacantaada ku jira iyo magac iyo maamuuska aad leedahay inta uu leegya kuma xidhna kaa kuma xidhna waxa uu ku xidhan yahay inta aad rabbigaa xidhiidha leedahay inta aad nolosha macnaheeda fahmayso inta aad garanayso maxaad u nooshahay qof hadduu maanta dhaqaaqo socdaal galo meel uu socdaana aanay jirin se uu yidhaahdo mar qudha nasan maayo oo daalo muxuu kororhsaday waxba ma kororhsan soo maaha laakiin haddaad hadaf leeday haddaad rabto inaad berbere gaadho waa hadaf la garanaya mar umaad gaadhi doontaa waa hadaf muxadada nolosha haddaad hadaf dhaba ka yeelan weydo 60 sano ama 70 sano lagu siiyey way dhammaanaysaaye haddaad hadaf ka yeelan weydo oo ah inaad rabbigaa raalli geliso jannana raadacaysatid naarna ka badbaadid hadafkaa haddaad xaqiijin kari weydo noloshu qiimo ma leh wax kastoo agtaada yaallana qiimo ma leh waad kadeedanta inta kadeedan baad ku jirtaa haddaad intaa fahamtana inta guulaysataad ku jirtaa walow aqoontaadu ha yaraato tusaalaan idin siin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray qoladii la fadhido yidhi bal ninkaa ka warrama waa idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weydiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen hadduu shafeec erga kugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen mudan in la dhegaysto yacni bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo hadduu danka ha yeesho shafeeca kuugu yimaadana waa nin magaci ergadiisa la aqbali karo hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo nebigu wuu iska aamusay ma comment garaynin mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaa ka warrama markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weydiistana mid loo guuriyo maaha hadduu erga kuugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhaahdeen يعني نبغى حبرة يا صحابة موازين تم حاول حلقو قيمية بني آدم كسي الله قيمية تنوع حولي لملء هذا من ذاك كا هراء يقول هاي وهو البوية هاي دولك مجيو كاسة نين كان باس كا خير بدل من نبغى وهل نين يدولك مجيو كي كلا ما هل كان نين يدولك مجيو سويدارية وحي سويدارية موازينta wax lagu qiimeynaya kala noocaha waayo dhulka mugiyo naar ku sii socda geedi naareeda faa'iido ma leh xabad jannada u sii socota dhaanta Soomaha hal qof xaga jannada u socda iyo dhulka mugiyo xaga naarta u guuraya tii faa'iido ma leh walidaalك nabigu wuxuu leeyahay dhulka mugi oo kaasa qof quro kaasa dhaama ayuha alahibba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimeyn lahaayeen waxay wax ku qiimeyn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaasi maaha wax lagu qiimeeyo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahay u dhow yahay buu qiimihiisa dhabta yahay taasun baana aakhira marka la isugu yimaado waxaan faacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa ilaa adduunka adoo waxaystaad kadeedan tahay haddaanad deganayn marka sidee su-aasha meeshan ku qoran waxa weeyaan sidee loo gaadhaa guusha dhabta ah si fudud baa lagu gaadhaa dhammaantiinna waa gaadhi kartaan waa jidkii nebi maxamed inaad raacdaan calayhi salaatu wasalaam
dhammaantiin waa gaadhi kartaan dadka ha xamanin ha caayin ha maagin akhlaaqdaada hagaaji bini aadamka si fiican ula dhaqan waxaad ka xoog roontay waa cadaalad samee salaada iyo zakada iyo cibaadaadkaaga samee akhlaaqiyaadkaaga ku dhaqan waa in nin waliba awoodo in lacag u baahan maaha iyo magac iyo maamuus uma baahna waa in qof waliba awoodi karo idan waxaan rabaa inaan idin idhaahdo guusha dhabtaa sidee loo gaadhaa haddii la yidhi dadkoo dhammi waa gaadhi karaa nebi maxamedna wuxuu yidhi dadkoo dhan baa jannada gelaya ilaa man abaa mooyaane ninkii isagu diida mooyaane dadku jannaday wada gelayaan buu nebigu yidhi ninkii diida mooyaane oo yaa diiday baa la yidhi oo wuxuu yidhi ninkii i raacaana jannuu geli buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam dee ninkii diidaana ay raaci waayaan isagaa diiday idan inaad guulaysataa kuma xidhna inaad yar tahay iyo inaad weyntahay kuma xidhna inaad lacag haysato iyo inaanad haysanin kuma xidhna inaad madaxtay iyo inaanad ahayn kuma xidhna inaad cilmi badantay iyo inaad cilmi yartay waxay ku xidhantao keliya itijaaha nololeed xagga aad u jeedisa uun directionka aad u jeedee raacaysid ma waddada xagga ilaahay qabataad maraysaa mise waddada xagga naarta qabataad maraysaa waddada xagga ilaahay qabata waad mari kartaa adoo lacag liya adoo faqiir iyo adoo waxhaysta iyo adoo maamuus leba ta xagga naartana intaba waa lagu mari karaa labadaa waddo inaynu kala dooranno ayuunbay ku xidhantahay guushu inta ay leeg tahay ilaahay waxaan ka baryayaa subxaanahu wa tacaala inuu ariiqa xaqa ayna tusiyo allahuma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaaca وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارحمنا واغفر لنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا واغفر لنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.